Soomaali waxa jirada balaayo daama la qabtay leedahay daba la qabto male marka ugu horreysay dhibaato waxa fiican inay la qabto intaanay wixii aan dhicin in la qabto in lagu hambaabro maaha marka ay wixii ay dhacaan inta badan marka khilaaf la xalinayo Soomaalidu dumarka iyo dhalinyarada iyo ma isticmaalaan xalinta khilaafaadka waa isticmaalaan odayaasha xirbeegta odayaasha oday dhaqameedka maamulka inta ugu sarreysa hadda isqabato madaxweynaha iyo ku-xigeenku hadda isqabtaan madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka hadda isqabtaan waa suurtagal ama waa u badan tahay in odayaashu soo galaan odayaasha xalliya odayaasha soo dhex gala wixii ka hooseeyana iska badaa waxaad moodaa dumarku inay si dadban ay uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka aanay uga qayb qaadanin si toos ah oo muuqata waayo waxaad dareemi kartaa dumarku waxay sameeyaan dadka isku abaabulaan labada dhinac way soo abaabulaan waxay gogashay dhigaan oo fidiyaan cuntadii lagu cunayay shirka ama xalinta khilaafaadka lagu sameeyay goobta lagu sameeyay sameeyaan buraanburkii bay tiriyaan heesihii nabaday tiriyaan waxa weeyaan dumarkii raggii bay gubaabiyaan waxa weeyaan marka Soomaalidu waa ku mahmada awr wadiyo gabadh nin gabadhi wada midna kama bayro kooyo kun sano ka bacdi lagu dilay walaalkii ma in aabiye madibo aha awowgiisna madibo aha qoys buu la sheegtaa qabiil baadilay Soomaaliya ana aan go'ayn dadku hadii uu dirro waa heshiiya magal kala qaadaya la isu toogaya wax kasta la sameeyaa wuxun baa la sameeyaa waa go'da ma go'ayso marka dib loo jaleeco taariikh nololeedka shacabka Soomaaliyeed waxa muuqata in ay colaadu ahayd mid ku lamaan noloshooda tani intii ka horeysay imaatinkii isticmaalka colaadu waxay lahayd dhowr waji oo kala duwan waagii ku baryaabo waayale waa talayda waqtigii dadku xoolahooda dhaqanayeen oo miyigooda joogeen oo aan damac dhaqaale iyo daaro la isku hayaa midna jirin oo ay ku koobnaayeen nizaaca iyo isqabadku wuxuu ugu badnaa cashiimada wax la yidhaa waxaan oran karaa khilaafaadku waxa uu jiraa qodobkiisa ugu ballaaran 70% waa dhulku isbedbedelayaa laga yaabaa bulshadu maanta waxay ku wada tashanaysaa oo ay ku wada dadaalaysaa inay soo wada gasho magaalada dabadeedna reerkii talo kuma deganaanay miigii ilaa iyo meesha ula kalshaale barkada la isku haystay ilaa iyo alka ugu galbeedaysa systemka conflictkaas waa dhul aba beer ha lagu sheego aba barkada lagu sheego aba balle ha lagu sheego aba tuulo cusub ha lagu sheego waa qodob la wada wadaago oo runtii waa isriixa udubka waxa la yiraahdo amba deegaanka waxa keenaya inay dadku isku qabtaan resource-ka waa yaraanta u yari wixii baa ku yar daaqa iyo biyaha inta badan reer miyigeena isku laayaan noloshoodu waxay ku xiran tahay xoolaha mararka qaarkood waxay soo runaysaa dadkan xoolaha la aqliyay meeshii xoolaha ay biyo iyo baad ka helayaan way isku dilaan mana ahan waxa deer bilowday waa wax soo tiila ah oo aad iyo aad maaragtay ugu fog dhaqanka reer miyiga taas oo macnaheedu tahay in ay godob hor leh u qaadaan reerka abaartu ku haybsatay reerka barwaaqo ku naaloonaya markay la wadaagi waayaan khayraadka ay haystaan biyo iyo daaqi waa nolol weyn haddii ma garanaysaa xoolahaagu ay biyihii iyo daaqi waayaan waxa weeye qofkaasi ama ciddaasi waxa weeye waa nolol guuri waa nolol kuma ogolo weeye waxa weeye reerkaa waxay ku reebaysaa arrin aad iyo aad ugu culus bay ku reebaysaa ma garanaysaa ma reerkii berigii ma garanaysaa na waraabin waaye ee biyaha noo diiday marka gunnimo ayaana loo arkaa muxuu isu bedelaa ha ka yimaado daaq iyo biyo wuxuu isu bedelayaa qaab qabiil waxa weeye wuxuu soconayaa waxa laga yaabaa in 100 qof ay ku dhimato markii horena sheekadu ahayd ceelka anaa ka hor cabayay ama halkaan anaa daaqaya bay sheekadu ka bilaabanaysaa qof baa ku dhimanaya qof kale ku dhimanaya sheekadaas way soconaysaa reer hebel baa isku soo duulaya 100 qof baa ku dhimanaysa isku dhacyada ku salaysan qabyaaladda ayaa badanaa ahaa ilaa imikana ah kuwa reeba aanooyin qoto dheer oo colaad hor leh huriya Soomaaliyeed iyo magaalo markay meel joogtaba wadamaatan oo isku xeer soo waxa garta maahan hor iyo horaan dadka qabiil soo jiraaya
oo aabbihiisi sii dhalay saddexaad weli la sheeganayo hebel baa dilay may garatay cudurka Soomaaliya haystaa horta waa aanadaas aanadu weligeed way jiri jirtay laakiin intaan way ka yara khafiifsanayd ama waa ka dabacsanayd ama waa ka yarayd laakiin aanada badanaaba waxaa keena cid intii dulmi ku dhacay dulmigii wax ka haddana tirtira ama wax ka dhaahiya ayaan jirin ama dadkii ma garanaysaa la dilay oo dhibta loo geystay ay weli maqan yihiin oo aan laga heshiin ama waxa lagaga heshiiyey ayaan ahayn wax lagu qanci karo arrimahaas baa marka aanada keena wixii ka dambeeyey ka bixitaankii gumaystuhu ka baxay dhulka Soomaalidu degto waxa soo kordhay siyaabooyin cusub oo calaaduhu ku aloosmaan waxa imika isbedelay marka ay yimid waxa weeye wax siyaasad la yiraahdo oo aan beriga jirin oo soo labaysay oo la yiraahdo siyaasiya beesho siyaasi bay leedahay oo beesho sida wax adigu nooca magaca siyaasiga la yiraahdo wuxuu wado oo beelhebla aan dagaal gelina la yiraahdo ayaa bedelay wixii hore oo laga yaabay inuu dagaal la geliyo beeshii oo dhaqaale intee la soo ururiyo hub loo iibiyo dawladda la dagaal geliyo taas waa waxyaalo badan oo aragnay oo dhacay imika kan siyaasadda waa dad mabaadi fikir gaar ah isku yimi oo fikir gaar ah wato weeyaan consequences-keedana wuu leeyahay oo waxyaabo wuxuu isku diri karaa beelal dhanba isku diri karaa beeladana wuu heshiisin karaa inta badan waxa u badan ka shirkaas siyaasadaysan in shakhsiyaad gaar ah ay had iyo jeer ay wataan oo aan ku bayska aan ahayn dan reer leeyahay aan ahayn ay tahay dan individual oo qofku uu shakhsiyan interest personal interest-kiisa uu ku wato sidoo kale tan iyo intii ka dambeysay burburkii Soomaaliya colaaddu waxay saameyn ku yeelatay habsami u socodka barnaamijyada horumarineed markii dawladdii burburtay habnololeedkii oo dhan baa isbedelay marka hay'adihii adduunka doonayay dadkii u soo gurmadaan ay caawiyaan marka habka u caawinayay waxay jiraan hab la soo maray dawladda soo maray ma jirto marka NGO-yadu iska samaysay si automatic ah iska samaysay tii marka waxay keentay maxay hayday in khilaaf yimaado because meeshii dumar resource lacag timaado khilaaf baaba imanaya marka khilaafkaasi ku dadkan xitaa hawshan loo waday baa waxa ka dhacsanaa wax ka badan baa idinka la idinku soo qaatay oo wala idinku maxay hayday idinku dulcunaya iyo maxay hayday xitaa ku jirtay oo taasi dib badan bay keenaysay taasna waxay keenaysaa haddii meelaha qaarkood wax laga qabto iska horimaadku imanaya waayo meeshana hore loo marinayo iyo wuxuu arkayaa meeshana dib u dhacaysa taas baa keenaysa dhibaatooyinka si kastaba ha ku timaadee colaadda ayaa markay dhacdo saameyn weyn ku yeelata habnololeedka bulshada waxa imanaya marka colaad meel ka dhacdo barakac baa imanaya bulshadii magaalada camiraysay wax iibsanaysayna dee waa ka tegaysaa kii wax iibinayay iyo kii wax iibsanayba waa la kala hadfaya meesha waxay noqonaysaa cambireed ee wanaagsanayd meel dee siiro cidla ah horta waa dhibaatay ku leedahay iskala go' bay ku leedahay kala go' ama la kala guuro waagii hore oo la kala fogaado colaadda iyo aanada waayo marka reer wax laga dilo wuu ka fogaanayay reerka wax dili wuu fogaan jiray waa laga aarsan buu oran jiray marka saameynta ay ku yeelato noloshu waa inay kala xidhmaan oo sidii la isku dhaxgali jiray aan isku dhaxgali kari jirin inkastoo saameynta colaaddu ay tahay mid wada taabata bulshada oo dhan haddana haweenka ayaa ah qaybta bulshada ee si toos ah ama si dadban ugu sii nugul waxay ku samaysaa in ay caruurteedii oo kale ay nolosha asaaskeedii oo dhan uu ka burburo sida caruurtii inay wax baran kari weydo inay caafimaad heli weydo waxyaalihii daruuriyaadkii oo dhan had iyo jeer waxaad moodaa inay caruurta ku weydo taasna saameyn toosa ayay hooyada ku yeelanaysaa saameynta aan tooska ahaynna waxaa ka mid ah had iyo jeer marka ay meel balaaya ka dhacdo waxaa had iyo jeer burbura dhaqaalo kobaca waddanka waxaa ku dhacaya shaqo la'aan taasi waxay toos u saamaysaa ay si dadban u saamaysaa hooyadii oo u waayaysa caruurteedii
waxyaalihii ay u baahnaayeen ee asaasiyaadka ahaa. sida filimku uu hore u soo sharaxay colaadda ayaa ah mid ku lamaan nolosha Soomaalida waaqiciga jira ayaana u horseeda in ay siyaabo kala duwan u xalliyaan colaadda iyo saameynteedaba. xeer nagama maqna Soomaali weligeed bay wada deganeed weligeed bay dagaalami jirtay weligeedna way heshin jirtay marka nagama maqna xalkii aan ku heshin lahayn waxa ka wanaagsan in la weydiiyo sababta keentay dagaalku muxuu yahay haddii la helo sababtaas waa su'aal jawaabteeda si sahlan loo heli karo sababtuna runtii wax kale ma aha waxa weeyaan waxun baa la isku haystaa. Soomaalidu waxay u xalishaa mushkiladaha waxa weeyaan saddex qaybood baa jira qayb waa wax tagay qaarna waa wax soo socda iyo koox imika markaa taagan haddii aan eegno wixii tagay waxa lagu kala tagay heshiisyo ah dhibaatadii markii hore dhacday si loo xalleeyo oo xalkeedii markaas loo helo taa markaa taagan waxa ugu muhiimsan markaa la qabanayo wax weyn horta sidii loo joojin lahaa dagaalka ceasefire wax la yiraahdo loo sameeyo lahaa dagaalka markaa soconaya loo joojin ka soo socda waxa weeye waa prevention waa in wixii keeni kara dhibaato ama carqalado keeni kara laba beelood amba dad meel wada degan oo kale ku keeni kara waxa weeyaan waxyaabo badan oo lagaga hortaga baa jirta sansaal colaadeed wax la yiraahdo baa jirta sansaalka colaadeed marka la arko in meesha colaade ay wax ka soo axaysmayaan waa in wax la wixii marka lagu joojin karo ee la qaban karo lagu joojiyo. qaababka ay Soomaalidu ula tacaasho colaadda ayaa weli u muuqda kuwa aan xoogga saarin ka hortagga isku dhaca reeraha. Soomaalidu khilaafaadka ka hortagiisa aad uguma fiicna inay ka hortagto laakiin waxay aad ugu dheeraysaa xalintiisa in khilaafaadka la xalliyo oo qaabab badan ayaa loo xalliyaa waxaa jira qaab traditional method ah oo qaab dhaqan oo xirbeegti la sameeyo odayaal dhaqan isu yimaadaan marka arrinkii dhaco odayaal labada dhinac ee dhibaatada qusayso laga keeno odayaashaas isu yimaadaan arrinkii loo bandhigo arrinkii ka xaajoodaan dhinacyadii isu keenaan eegaan dhinacyadii waxyaabaha kala tabanayaan marka ay isku dayaan dadkii inay si dhaqan ku xalliyaan. xallinta khilaafaadka iyo ka hortagooda ayaa ah laba marxaladood oo baahiyo kala duwan leh halkaas oo khubaro badan ay ku tilmaameen in aanay Soomaalidu wali yeelan awoodii suurtagelin lahayd ka hortagga khilaafaadka. sidaas baa marka waxa la aaminsanaa dadku odayaashu waxay soo jeediyaan in dantooda inay tahay sidaas ay xoogaa u kala damayn jireen hadday dhibi dhacdo meesha mar hadday odayaal tagaan 90% waa lagu guuleysan jiray in dhibtaasi ay iska dhamaato marka sidaasa roolka dhaqankuna ahaa ilaa yoomina haadana waxaan isleeyahay weli wax bedelaho dawlad weyn dawlad xoog leh oo hadda kala damayntii iyo shuruucdii soo celisa oo socodsiisa oo hadda lagaga kaaftoomi karo dhaqankii ima muuqato. intaas waxa sii dheer in ay caqabado dhowr ah ku soo kordheen qaab dhismeedkii hoggaanka dhaqanka ee deegaanka Soomaalidu degto. odaygii hore ee la yaqaanay in ka badan maxaan ku raadayay 2 3 4 baa ka ag sharaxan noocu doonaha ku yimaado ama dad dangaara leeyahay soo ha imaamadaan oo geedintay soo fadhiisanayaan adna nooc aqila ama dana kale ha soo galaan cidii doonta ha adeegsato ha noqdaan siyaasiyiin ha noqdaan maxaan ku raadayay marka qaarkood baa loo aanayaba inay soo gaadho xataa dhinac dawladeed bay gasho la sameeyo cid kale kuwaas markaa waxay dumiyeen xeerkii adkaaya dhaqan ee odaygu uu xurmada ku lahaa wuxuu gaadhana guddoonkeedu dadku ay lahaayeen taas markaa waxay keentay inay 10 caaqil fadhiistaan 10 geed ka kala hadlaan markuu mid yiraahdo hadal uu go'aamiyana ay 10 kale ka garab hadlaan ay dhinac kale ka soo jeestaan. sidaa awgeed waxaa bilaabantay dadaallo lagu doonayo in lagu yareeyo caqabadaha soo food saaray habsami u socodka nidaamka nabadaynta ee dhaqanka ku salaysan. haddii markaa magaalada la yimaado magaaladu waana war badan tahay waana dad badan tahay waxaana jooga dad politicians iyo politics iyo preaching chain waxa ka muxuu ahaa si kale u xuduuduwaya marka waxaanu sameynay inaanu miyiga u saaro waxay noqotay inaanu u saaro miyigii la degno muxuu ahaa geed hoosti la seexano 2 weeks 3 weeks mararka qaarkood
mararka qaarkoodna muxuu ahaa tuulooyinka yaryar ee aanu la tagno oo keliya iyaga keliya ay ku nool yihiin oo aan markaa influence kale aanu imanayn. inkastoo dadaalada noocan ahi ay marar badan dhaliyaan natiijo wax ku ool leh, haddana waxa muuqata inaanay ku filnayn dib u soo noolayntii xasiloonida deegaamo badan. dhibtu inay dhammaan weydana waxaa keenaysa inaan sidii la rabay xalka loo wajihin. qof baa qof dilaya, waxaa isu imaanaya laba qabiil, labadii qabiil baa waxay sameynayaan waxbay qaybsanayaan, saana xeer inoo ahaan jirtay baa la leeyahay. xeerkii adiga labadii oday waa heshiiyeen, laakiin wiilkii aabihiis la dilay ama ninkii walaalkiis la dilay oo hadduu rabo aan go'aankii wax laga siin ama markaas ilmo yarba ahaayo soo korayo markuu 30 sano gaaro dhahaya ninkii aabahay dilay reerihii aabahay dilay. xal ma ahan inaad labadii oday iyo labadii reer ay wada hadlaano geel kala qaataan oo qabiil geeli qaybsado. xataa geeli waxa laga yaabaa inaan ilmihii iyo wax badan laga siin ee qabiilkii baa qaybsanaya. marka xal waxa loo waayay waxa way sidii la rabay baan loo wajihin. tan iyo intii ka dambeysay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa deegaanada Soomaalidu degta ka howlgala hay-ado badan oo maxalli ah, kuwaas oo fuliya barnaamijyo mashaariic samafaleed oo kala duwan. xallinta khilaafaadka iyo ka hortagooda ayaa ah laba marxaladood oo baahiyo kala duwan leh. mararka qaarkood waxaa muuqata inagu inaynu khilaafka contribute karayno sababtoo ah resource-ka waxa aynu ugu talagalno deegaan markuusan ku filnayn khilaaf baa imanaya. hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah ayaa u muuqda in casharro muhiim ah ay ka barteen habsami u socodka howlaha samafalka iyo kuwa horumarineedba. laakiin hay-aduhu iminka waa la soo fahmay nidaamkii, deetana waxaa la sameeyaa in dadka horta meesha deganaa in la sameeyo marka mashaariic laga fulinayo dadkii horta loo tago intaan wixii loo geynin, dadkii in lala hadlo, dadkii wixii laga dhaadhiciyo, in tababar la siiyo bulshadii la dhiso oo la baro sidii loo khilaafka loo xallin lahaa, sidii mashaariic horumarin loo abuuran lahaa. intaa marka la sameeyo oo aan la ogaado inay leeyihiin tayo ay wax ku maamulan karaan khilaafna ku xallin karaan, mashruucii loo keeno. taasi waxay markaa aan odhan lahaa waxay ka anfacaysaa nidaamkan Dunoham approach-ka ee isticmaasho Care International in wixii dadka loo waday aan lagu hagardaamo iyo waxyeelo toona aanay samaynin. waayo Dunohamku anagu wuxuu naga caawiyey inaan marka hore fahano biicada meesha, dadka degan, xiriirka ay leeyihiin, khilaafaadka iman kara, waxyaalahaas oo dhan buu naga caawiyey inaanu isticmaalno Dunoham approach-kaas mashruuca la yiraahdo inaanu isticmaalno wax badan buu naga caawiyey. marka aan waxaan leeyahay hay'aduhu intaanay gelin oo aanay khilaafkii iyagu ay bar ka noqonin marka hore inay sii fahmaan oo ay isticmaalaan Dunoham projectskaas inay isticmaalaan oo darsaan oo meeshii marka hore sii eegaan. dadaalada ka sokow colaadaha ka dhaca deegaanada Soomaalidu degto ayaa u muuqda kuwa sii kordhaya, isla markaana ka dhasha sababo ka tan badan awoodda xallinta khilaafaadka ee ay Soomaalidu leedahay. sidaa awgeed ayay xallinta khilaafaadku ay noqotay arrin ay ku hawlan yihiin hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada ay Soomaalidu ku nooshahay. dadaaladan oo mabda ahaan kasbaday ammaan iyo dhaliilaba. hay-adaha dibadda ka yimaada markii ay doonayaan inay wax taraan ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid khilaafka jira inay ka hortagaan oo ay ilaaliyaan nabadda waddanka iyo deegaanka. waa wax habboon oo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan. waxa uu ku habboon yahay waqtina kama madhna, waqti kasta oo gurmadka la sameeyo ama khilaafka in laga hortago la dama way ku habboon yihiin. laakiin waxaan sii oran karaa xilliyada guga ee roobku da'ayo oo maxay ahayd aanay haleelkuna jiro ee ummaduna ay ilaahay raxmadiisa kolkuu keenay haleelka leedahay bay ku habboon tahay baan oran karaa. halka dadka qaar dood ay ka qabaan mabdi'iyan xallinta khilaafaadka ee ay hay-aduhu ku howlan yihiin, ayaa qaar kalena su'aalo iska weydiiyeen geedi socodka qaabka fulintooda. haddii aan si cilmiyeysan loo gelin waxba ma ka hagaagayaan. hadba seminaar la qabto iyo hadba oday magaalo loogu yeedho berdm la siiyo isma solution maaha solution. odayguna berdmkaas buu u dhimanayaa, waxa lagu hadlayona garan maayo, inta badan waxay ku luntaa interpretationka waxaas ku luntaa. marka waxaa ka wanaagsan in loo gudbo camali
loo gudbo dadka muxuu ahaa kule khibradda kule loo daayo haddii marka loo dayn lahaa muxuu ahaa soomaalida dhexdeeda because haddii xitaa laba qabiil ay dirurto oo conference uu dhaxo qabiil saddexaad baa la helaya oo neutral sida khubaro badani ay ku sheegeen qaybihii hore filinka khilaafaadku waa shay ku lamaan nolosha bini'aadamka marka laga saadaaliyo tamaanta taaganna waxaa lagu dhiiran karaa in muddooyinka dhow ee soo socda khilaafaadku aanay ka dabar go'aynin geyiga Soomaalidu degto oo uu weliba sii socon doono isagoo wajiyo kala duwan leh sidaa awgeed maxaa u bannaan hay-adaha ku howlan xasilinta iyo nabadaynta imika anigu waxaan weerarnimadii bartay in haddii waxaan si cadaalada looga taliyo oo nijacaysiga laga daayo in maxaa hayday khilaafka la xalili karayo weliba uu noqonayo ku jira oo waara uu noqonayo laakiin asbaaraas inta ay xasho yari iyo nijacaysi ku jiro weligeed muddo oo khilaafka lama saari karayo mar walba khilaafku wuxuu ka habboon yahay ka hor in dadka laga wacyigeliyo dhibaatada khilaafka in maxay ahayd siyaabo badan wax loo tusaaleeyo inaan dagaal faa'iido lahayn Soomaaliya maanta waa ka dharagsan tahay oo 20 sano bay dawlad la'aan way garanaysaa dhibaatada khilaafka leeyahay marka wacyigelin badan oo idaacadaha loo mariyo dadkan wax ma akhriyo website-yada iyo wax la geliyaa macna ma sameynayaan idaacadaha in la mariyo dadku ay dhageystaan maqlaan marka ay ku wax ka aqaan dadka habboon sayluunku yaad badan صباحا كريشي سير سير لو دقي سنات يلو ضليلي سيلوك ياد بدن صباحا كريشي سير سير لو دقي سنات يلو ضليلي سيرك لاليس نرجو أن صعد برن أوي سيرك لاليس نرجو أن صعد برن غير حسن توديو كي مسار للودي جاي